madaxda iyo caruusaadka iyo caruusiinta intaba waa wada salaamaya inta kadib umuman waxaynu isugu nimi xaflad ku saabsan in dad muslimiina ama guryo islaamiya la asaaso diintana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamay inay sunnatul anbiyaa tahay oo ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa rususha uu soo diray inay lahaayeen azwaaj iyo dhurriyaba ama reera inay lahaayeen waana sunnadii nolosha ilaahay ugu talagalay inay ku faafto oo ah lab iyo dhadig dhexdood wixii ka dhasha inay noqoto waxa nolosha bayska u noqda mar labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka wuxuu ku tilmaamayaa aayaadkiisa inay ka mid tahay aayadu waa calaamaadka ilaahay lagu garto ee lagu weyneeyo wa min aayaati an khalaqakum ilaahay wuxuu leeyahay aayaadkiisa waxa ka mid ah inuu ka sameeyey naf dabeetana lamaanaheeda uu sameeyey waxaana loogu talagalay baa ilaahay leeyay litaskunuu ilayha deganaanshiya xasilooni waxaan tilmaamayaa markaa sideedaba guurku ma maqnan baa mise waa mas-uuliyad dhalinta dambe guurka waxay u arkaan raaxo iyo nicmo qura laakiin taa way tahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة حديث كإمام مسلم ورينيو دنيدو جبجد وحوجا بدبدا من راحة إذا أنا وحوقف مضمب نبو كت الماما يا هوين مسلمات وصالحة لكن وحتى كوين أنت ومسؤولية دي هاي جوريجو أما أسرادو أما قيسكو وجندي قبل شده يعني bulshadu dhamaanteed waa qoysas isu tagay saawgeed waxay yiraahdaan waa meesha lagu barto idaarada iyo maamul waa meesha lagu barto siyaasad waa meesha lagu barto naxariis waa meesha lagu barto cadaalad waa meesha lagu barto takaaful erayada af carabiga aan tilmaamaya waxay sheegayaan gurigu waa meesha maamul lagu barto awal kaliya baad naftaada mas'uul ka ahayd laakiin marka lamaana kale kugu soo kordho وشركتي كواد نولشة ومسؤولية كواد هالك كابل أبنتو واحد هذا نكون سوسيولوجي كورما مركب ورميان شركات كدنيا كتشرور دان وحيلين هايراركي كلا سرين مدحوين ده معمولات ده واحد دونتر ده عد معموشة إيوه عد لا معمولة كلا سرية بيلين واحد هذا وسترن سوسايتي وو أقبله وحلاليه وحشركة شراء إنه هايراركي جاي يشوا مركا لقى ربا بيدهن جوريجا وماشى قرأ آن لهين بيده هذان وسترن سوسايتي إن نك يجبر دلائده هو يسميه إنه معمول مكاله وأنا شركة عن صعانين شركة كستان معمول لهيني وشركة عن صعانين لكن معمولكو معناه سوى حويان كو وماشى لقبرت سياسة الناس dad si loo maamulo ila siyaasadda lafteedu waa intaawne waa qoys iyo caruur iyo waxa in la maamulo waxa inta dheer waa meesha lagu barto cadaaladda oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa caruurta iyo saa loogu cadaalad samaynayo qoyska iyo reeraha saa loogu cadaalad samaynayo haddaad taa ku guul daraysato waxay u egtay inaad mas'uuliyad umadeed oo kalena qaadi karin waayo unugii ugu yara haddaad ku guul daraysato way adag tahay inaad maamuli karto mid ka ballaaran sida awgeed qoysku waa meesha lagu barto naxariista waa meesha hooyadu hooyanimada ka keento aabuhuna aabanimada ka keeno taasoo ah mas'uuliyadda inay qaadaan bulsho kale inay u naxariistaan inta badan dhalinta waxaa dhacda inay dhanka wanaagga arkaan ama dhanka raaxada inay arkaan laakiin aanay arag maamulka iyo dhibta uu leeyahay inanta yeelanku markay wada hadlayaan guur rabaan qof waliba labeentiisu sheega miyaa qofna intiisa xun sheega qof waliba intiisa wanaagsan buu sheega laakiin nolosha dhabta ah marka la yimaado qof walba waxoogaagii jacjacornimada u qarsoonaba markaa soo baxaya ma qarin kartid nolosha dhabta ah marka timaado
إذن ملائكة ستمي معها وبشر وبني آدم سيمي تمعني هدو حويان إند ما ملكرته نقصان تادا إيا نقصان تقوردادا ما هوين إدادو لادا لبادا با إند ما ملكرته وقويسكو ودسنان كارو دالين يراداد نمبه marka mushkiladda koowaad ka hor timaado xal waxay u arkaanun cagsiga inuu ku noqdo kelinimadii taasi ma raganimada waa inaad maamuli karto marka qoyska soo kordhay adiguna jacjacornimo ku qarsoonayd waa soo baxaysa iyadana waa soo baxaysa qoysasku maxay ku dhisan yihiin ilaahay wuxuu leeyahay waashiruhunna bil ma'ruf samay ku dhisan yihiin samuhu waa maxay waa inaad xaqaaga qura ilaalin haddaad tiraahdo xaqaygii iyana tiraahdo xaqaygii oo cid waliba xuquuqdeeda ay u dagaalanto qoysku uu burburaya qoysku waxa weeyaan waa in la isu dhimriyo oo tit for tat ay noqoto oo aadnaad wax ka tanaasusho iyana wax ka tanaasusho waxay dhahdeen wadannada qaarkood ba maanta waxay markay dareemeen guryihii dhalinyarada dib u burburaya haddana dhalinyarada in loo guuriyo waa min ad-diin nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka dhalinyara ee awooda inuu guursan karo ha guursado كان قرسان كرنا وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم بايلا إليه جماعة إنما برشدة انت كالي دولة يا شعبية انت كالنا وحليدي وانكحوا الأيام أيامه هو جمع أيم كوحليدي هذا قف كان قور هينين يعني قبلنا أن لقرسان إيانين كان وحقرسان لبدا صاليدي هذا warkuwii nadoob ka u guuriya ba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala wa mas'uuliyad jamaacada saaran haduu ninka dhalinyaradii awoodo guursa la yiri waayo waa nisfu diin ba ku dhameystirmay buu nabigu alayhi salaatu wasalaam markaad guursato hadaanu awoodinna jamaacada muslimiinta aba waxa la yiri waanki xulayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum rag iyo dhalinyaradina xorta wixii aan awoodin ay guursadaan u guuriya hatta kuwa adooma ba ilaahay yiri aan awoodin iyaga laftooda u guuriya baa la tilmaamaya taamacnaheedu waxa weeye bulshadu waa inaan cid guur li jirin waa in loo wada guuriya laakiin in haddana dib loo burburiyo qoysaska ma he waa inuu sugmaa oo unug jira uu noqdo ummad waliba sida qoyskeedu u eeg yahay bay bulshadeeda sarana u eegtay dawladnimadeedu u eegtay dadnimadeedu u eegtay haddii aad aragto ummad mu'asharaadka lagu qiyaaso bulshooyinka iyo horumarkooda waxa ka mid ah yani maqaayista lagu eego bulshada horusocodkeeda waxa ka mid ah dhismaha guryaheeda iyo say u burburto haday ummadda guurkeedu yaraado waa mushkilad waana tamaanta Yurub haysata kalabaad hadduu guurku markuu dhaco haddana burburkiisu batana iyana waa mushkilad kale taasi labadaba waxa lagaga gudbi karaa in diin lagu dhaqmo gurigii diin lagu dhaqaa uu badbaadaa raguna xuquuqdooda ay helaan dumarkuna xuquuqdooda ay helaan reer galbeed baa markii rag iyo dumarka loo loolansiiyay ayaa waxay noqotay xuquuqdu in la kala dhacsado gabadhuna inay xaq u loolanto ninkuna inuu xaq u loolamo ay noqoto dagaal laakiin islaamnimadu mid walba xaq bay siisay waxaanay tilmaamtay in macruuf lagu dhaqmo oo ilaahay quraanka leeyahay wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum si waxyaaba yar looga gudbo markaanu kelmadeyda waxaan ku soo koobayaa waa qadiyad sharcigu ina faray waxaynu u fadhino oo ah in loo guuriyo cidii aan guursan karin cidii guur awooday inay guursato in la aasaaso guryo islaameed in la badiyo bulshada nimankii reer galbeedka ku dhawaaqay carruurta hal la yareeyo hadday haddana dawladahoodu dib ugu dhawaaqayaan waynu maranaynaa ya hal la bato sida quray dadka wax uga dhaadhiciyaan in lacag la siiyo dad guursato lacag baa lagu siinaya dad ilmo dhasho lacag baa lagu siinaya haddii ilmo ku dhasho fasax baad helaysaa dumarku fasax sanada bay helaysaa hadday ilmo dhasho dawladuhu inay dhiiri gelinayaan hadda inaga ilaahay baa inagu yiri guursada ilaahay baa inoo sheegay inaynu badanno ilaahay baa inoo tilmaamay qaabka loo dhaqayo marka maamulkana waan soo dhaweynayaa arintan dhiiri gelinaya bulshada muslimiinta ee dhiiri gelisay waa soo dhaweynaya guryaha cusubna waxaan leeyahay ilaahay haydan barakeeyo guryo khayr qaba oo bulshada wanaag ku soo kordhiyana Allah idin